شفاء لروحي وحبل المتين bulshoy waxaa la idinku bishaareynayaa xarunta الهلال cudurrada laga daaweynayo waxaa ka mid ah dhiig furanka waalida caado wareerka umusibyaanka gabdhaha wejiga ka halaabay baabasiirka dhagaxa kiliyaha gala xoojinta raganimada isha dhiigkarka sokorta naxdinta kili xanuunka waswaaska madax xanuunka jinka dhalmala'aanta dhasha Allah bixiye toobinta iyo kuwa kale oo fara badan xaruntuna waxay idin keentay daawooyinka baabasiirka gaaska daawada kaliyaha nadiifisa daawada infectionka tan calool bixinta daawada samboorka tan sokorta caado wareerka umusibyaanka iyo dabaysha neerfaha allergiga dhiigkarka iyo daawada xoojinta raganimada rheumatismka daawada caloosha lagu yareeyo iyo murqadhisida daawada yiridka daawada burseelka iyo guryaanka waxaad sidoo kale ka helaysaan biyaha samsamka iyo tinka iyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات كسو دوادا برنامجكي سؤالها إيو جوابها سؤالها انت بدن لغسو ويديو دنك يوتيوب كا كومنتيادا لغو سو قرو يا دنك فيسبوك با ايانو اسبوعي مر uga soo jawaabnaa walaalaha si ay uga faa'iideystaan su'aalahaas iyo jawaabahooda adaba marka hadii aanu ku horeyno su'aalaha dhanka YouTube-ka su'aalaha marka saad arkaysaan su'aaluhu way kala badan yihiin wayna kala dhaadheer yihiin sida awgeed su'aashan ugu dheer ayaanu ugu hormaraynaa maadaama qofka dee su'aashan uu soo qoray uu waqti geliyay su'aal walba intay ka badan tahay ayuu qofku dareemayaa xanuun iyo problem sida awgeed siday u kala badan yihiin ayaanu su'aalaha jawaabahooda usoo kala gudbinayaa idanka ilaahay haday ku noqoto marka saa'ilkan bal xogaa ayna dul marno inkastoo qoraalku uu badan yahay haddana waanu boobsiinaynaa wuxuu leeyahay anigu 2 saac camal baa ayaan baseexdaaba kadibna waan soo kacaa qof nin ah ayaa maqnaa buu yiri qofkan qof cod nin leh ayaan maqlayaa magaceygana dhahayo magaca igu yeeraya dhakhtar ayaan tagay waxaana ka codsaday buu leeyahay qofkan sida qoraalku uu qoran yahay way daawo inuu isiiyaan ka codsaday oo arrimaas daawo iga siiyo dhakhtar horta daawo lagama codsaday xanuunkaaga loo sheegaa marka hore laakiin sida hadda asaga commentiga ku qoran dhakhtarkii baan daawo ka codsaday buu qofkan leeyahay waxba kuma hayaan baana la yiri buu yiri leeyahay qofkan marka ma soo bixi karo guriga kama soo bixi karo waan cabsanayaa waan baqayaa guriga markaan tagana inaan fariisto ayaan jecelahay buu leeyahay jirtu buu leeyahay colaadna la dhex dhigay aniga iyo qoyskaygii aabahay hooyaday caruurtanadii colaad baana dhex taalo leeyahay su'aashaan marka dhowr qodob bay isku jirtaa hadduu qofkaasi dumar yahay hadduu rag yahayba yacni jawaabtoodu waa isku mid qofkan ciladan haysata iyo ciladaha noocaan oo kale dadka ay haystaan waxay u badan tahay qofkaasi inuu yahay qof masxuur ah oo la sixray qof guriga lagu xabisay inuu yahay markaas marka calaamadahan dambe oo sheegaya qofkan uu leeyahay reerkii baa isku kaaya diray oo aabahay iyo dadkii cid ma arki karo ayaduna tafriiq bay noqonaysaayo qaab tafriiq ayuu hadana saameyn ugu yeelanaya wixii baa isbedelayo marba nooc ugu imaanaya hadana waxaad arkaysaa in uu yahay nooc xabis ah oo guriga lagu xabisay qofkan guriga uusan ka bixi karin hadduu baxana uu jeclaanayo inuu guriga kusoo noqdo ama uu xanuunsanayo oo uusan dhaqaaqi karinba ciladaas dad badanna waanu aragnay oo laga daaweeyay su'aalaha WhatsApp-kan wayba ku jirtay oo gabar baa cod ahaan igu soo duubtay oo i weydiisay su'aashaas oo tiri sheekh arrintaas ma bannaan tahay dadka marka sameeya sixir xabsiga oo caruurtooda ku sameeya waxaa jira hooyooyin badan oo ku sameynaya caruurtooda arrinta ayada ah way xabisayaan guriga ku xabisayaan gabadha baa guriga lagu xabisayaa sixir baa lagu sameynaya guriga ha ku joogto ma oga waxana inay sixir yihiin ama haba ogaadeenba dadka qaar baa og nin baa loo tagayaa ama dumar baa loo tagayaa barnaamijkaas ku shaqeysto yaqaana kadib waxa leeyahay gabadhan socodkeeda batay guriga lagu celiyo gabadhi waa la sixraya sixir xabs lagu sameeyaa waa la xabsi
wiilkii sidoo kale waa la xabisaya, gurigii baa lagu xabisaya. waa arrimaha maanta waqtiyadan hadda la joogo aad bay u badan tahay arrinta ayada ah, waana wax aanu aragnay. cilada ayada qofka hadduu isku arko, xitaa dumarkii waaweynaa oo reerka lahaaba ee ragga qaar u sameeyaan, islaantii aysan bixin awgeed ayay waxay u sameynayaan sixrulxabs, in lagu xabiso qofkii guriga uusan guriga ka bixin. waa wax dhaca, ragga qaar loo sameeya. arrinta ayada ah marka saa'ilkana soo weydiiyey, dad badanna aan aaminsanahay inay qabaan su-aashaas. waxaan leeyahay ciladaas ayaa jirta. haddii dhakhtarna uu wax kaa soo qaban waayo oo intuu ku baaray uu ku yiri waxba ma qabtid, ciladina ay ku haysato, adoo weliba xilli fiican inaad seexato sheegay, oo hurdaduna maaragtaayena ay ku dhibayso, hurdo la-aan aad dareemaysid, haddana ciladahan ay ku hayaan oo lagu yeerayo oo dhawaaqa hadalkaaga aad maqlaysid, qof kuu dhawaaqayo magacaaga kuugu yeerayo, gurigiina aad ku xabisan tahay. akhil kariim waa waqti lfaadila, rag iyo dumar midkaa tahayba, waxaanu ku leenahay iscilaaji, isdaawe, isku daawe kitaabka ilaahi subxaanahu watacaala iyo sunnada nebi maxamed sala allahu alayh wasalam, iyo daawadaas dhirta ah ee daawadeedaeedaheed mid lamid oo u eg. qofka wuxuu leeyahay, sheekh aniga hal lug oo bidix ayaa i xanuunto, inaan socdo la ima ogolo, guriga haddaan joogo caadi way ii fiican tahay buu leeyahay, laakiin markaan albaabka haddaan ka baxo xanuun ayaan dareemayaa. waa qof kale wey, laba qofoon iskala weyn wey, waa laba qofoon is ogeyn oo commentiga kusoo qoray. banaanka markaan u baxo ma socon karo buu leeyahay, xanuun ayaana dareemayaa. qof dumarana waan hay bay leedahay qofta. aayadaha sixirkana waan dhibsadaa. gabadhan say sheegayso, guriga baa lagu xabisay, sixirul xabsi ayaa lagu sameeyey. calaamadaha ay sheegayso oo dhan waa calaamadaha lagu garto qofka guriga lagu celiya, guriga lagu sixray, oo bannaankaba hadduu soo baxo uu xanuunsanayo, bannaankaba hadduu soo baxo uu xanuunsanayo. sidoo kale waxay tiri, haddaan qur-aan shito aayadaha sixirka aan maqlana waanba xanuunsanayaa bay leedahay. dee taasi waxa weeye jawaabba uma baahna. waqti lfaadila waxaa lagaga baahan yahay in aad raadiso dadka barnaamijkani dadka ku daaweeya, cilaajinta sameeya, si gaar ana kuu daaweeya inaad raadsato ayaa muhiim ah. mar haddaad og tahay xanuunkaagii oodba aragtayba qofka weyn, soomaalida waxay tidhahdaa nin qof weyn xanuunkii waa ogyahay, inaad markaas isdaaweysid unbaa kula gudboon. su-aashaaduna dee adaaba ka jawaabay oo adaaba leh aayadaha sixirka ayaa ay dhib. annaguna waxaan ku leenahay ciladaasi waa cilad jirta. qofka haddii guriga lagu xabiso oo guriga markuu ka dhaqaaqana uu xanuunsanayo, dhakhtarna uusan waxba ku sheegaynin, waxa weeyaan waa cuduradan masiga laysku yiraahdo. qofkaasi waa qof masxuur ah oo sixran. idanka ilaahay videoga ku xigana waxaan idiin soo gelinayaa qaabkii aad isku daaweyn lahaydeen, aayadihii aad akhrisan lahaydeen, suuradihii aad akhrisan lahaydeen ayaan halkan idiin soo gelinayaa inaad dhegaysataan, akhrisataan, ayadoo maqal iyo muuqaal ah ayaan idiin soo gelinaya insha allahu tacaala. la socda marka insha allahu tacaala videogan ku xigo.